qaybo badan oo dalka kamid ah ayaa iminka waxaa ka jira abaar aad u xoogan taasi oo sababtay in roobkii deerta uusan ka di'in gobolada qaar. Gobolka Geda ayaa laga soo warinayaa abaartii ugu xumeeday iyadoo dad badan ay halkaa ugu geeriyoodeen haraad iyo baahi. Dadka qaar ayay ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqanayeen kadibna u soo hayaamay magaalooyinka sida duleedka magaalada Kismaayo. Waalidiinta qaar ayaa caruurtooda uga soo tagay wadooyinka. Hay'adaha gargaarka dowladda dhexe iyo tan Jubbaland weli waxba uma qaban dadka ay abaaraha saameysay. Dhalinyaro uu hormuud u yahay Bilaal Bulshaabi oo caan ka ah barta TikTok loona garo og yahay madaxweynaha TikTok ayaa si isxilqaan ah ugu istaageen dadka ay saameynta adag ku yeelatay abaaraha. Dhalinyaradan isxilqaanta oo gacanta ku hayn dhaqaale sidoo kale hay'ad dowlad iyo mid NGO aysan garab taagnayn ayaa maalmihii la soo dhaafay qaybo kamid ah gobolka Geda ka waday biyo dhaamin iyagoona qoysaska kuwa liito u sameeyay raashin qaybin. dalka Soomaaliya iminka wuxuu leeyahay 6 madaxweyne ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe. Gebi ahaantooda waxay xoog iyo xoolo iskugu geeyeen siyaasadda mashquulshan ee kala guurka iyadoo dadka in badan oo kamid ah ay abaaro u la'aanayaan. Xukuumadda Soomaaliya waxay leedahay in ka badan 60 wasaaradood ay ugu horeyso wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Khadiija Maxamed Diiriyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka iyadoo wasaaradeeda laga rabo inay shaqo badan ka qabato abaaraha dalka ku habsaday. Sida shacabka Soomaaliyeed intiisa kale ayay dhalinyaradan isxilqaantay barteeda Facebook ka dhiirigelinaysaa.